السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفر وعنو وناكسن كسو دوادا cunto caafimaad galabta waxaan la wadaagayaa sida loo sameysto sambuus aan la shiilin oona saliidna lahayn bur halka igu jiro qaado yar oo cusba iyo waxaan ku soo darsaday biyo qandaca folidii sambuuskan sameysanayaa saana igu soo baxday run ahaantii stepkan muhiim ma aha oo hore ayaan u sameeyay hadda waxay raan daboolaya intaan qudaarta ka diyaarsanayo hadda waxaan diyaarsanayaa wixii aan sambuuska gelin lahaa halkan waxaa igu diyaara basasha cagaarka ah kabsar caleen basasha guduudan iyo basbaas basbaaska waa ka dhaafi kartaa haddii uu ku dhibaayo digsigaasaan dabka soo saartay qaado yaroo saliida ayaan kusoo daray basasha haaf ayaan rabaa inaan qaleeyo kalluunkaasaan isticmaalayaa iyo onion powder iyo yaroo cusba iyo qudaarta inta halkaas ka muuqata inaad basasha qaleysato waxay kugu caawinaysaa in aadan isticmaalin spices badan spiceska badan cuntada dhadhankay ka haleeyaan inay gaas kugu kiciyaan waa laga yaabaa oo iyo laabjeex marka basasha hadda si fiican u qaleysanayaa haddii si fiican aad u qaleysatid basasha oo saan oo kaleeto ay kugu gududato run ahaantii waa ka maarmaysaa inaad ku dartid spices badan qaadadii cusbadeed haafkeeda ayaan kusoo daray basasha hadda waxaan ku darsaday kalluunkii aan kusoo darsaday kalluunkan waa maahi oo frozen ahaa oon hal saac kahor kasoo bixiyay freezerka cusbada inteedii kale aan kusoo darsaday hadda qaadadaas usoo bedeshay waan kusoo burburinayaa waxaana sugayaa ilaa uu soo oo bislaado oona qoyaankana ka dhamaado sizekan rabana uu ii ahaado ii noqdo hadda diyaar waaye wuu ii qalalay sizekan ka rabayna wuu ii noqday oo waan kasoo dhigtay waxaan ku darsanayaa basasha shiidan yar cusbadiina hore aan uga daray hadda dabka waa ka damiyey qudaartii aan kusoo darsanaya marka hadda sidii ka rabo ii noqday aad qalayl uu ii yahay qoyaan dhan ma laha marka saas oo kale inuu ku noqdo waaye hadda weelaan ku diyaarsanayaa waxaan sameynayaa folidii sambuuska kuskuuskaasaan kasoo dhigaya marka hore galabteeda lama wadaagayo afurkeeni oo dhan waxaan jeclaystay inaan la wadaago sambuuskan oo caafimaad kale oo lagu sameynayo ovenka iyo cabitaankeena wixii aan ka sameysanay waa in la wadaagi doonaa hadda wuxuu ii noqday sideed xabo ii noqday marka 4 iyo 4 isku dul saaraya soo ay ugu fududaado oo hawsha ay ugu fududaato
marka 8 xabo laba jeer oo kala duwan aan fidinayaa marka si ay ugu fududaato laba jeer kaliya aan fidinayaa marka saliidan dhexda ka marnaa isku qabsanin hore ayaan u sameeyay oo waan bitinayaa fiidiyowgan wuu igu dheeraa marka laakiin hore u sameeyay anoo steps ka dhan raacaya hadda waa soo fidinaa 4 xabana gadaalan ka sameyn doonaa afartaas kaleeto gadaala aan markii intaan aan dhameeyo hadda saan birtaan kusoo gedgedinaa marka insha Allah saasa kusoo dhameynaya midka xabada ugu horeysa in tusay saanaan kusoo dhameynaa kulli hadda waa soo dhameeyay weelkaan aan rabaa inaan saxamadaan aan rabaa inaan la geliyo ovenka kaasa brown bagaasaan ku ritay burki yarka ahaa koolada ahaan halkaasaan kusoo qastay waxaan tusayaa labada xabo ugu horeysa kadibna sidaasaan kusoo dhameynayaa saasaan kusoo dhameynayaa marka ovenkaan rabaa inaan la gashado hadda wuu easy daaray ovenkayga 375 ayaan rabaa 30 daqiiqo inaan geliyo hadda waa kana saliida wax yar oo saliidahan spraygaan isticmaalay oo saliid yar aan korka ka mariyay marka saas ovenka ku aaday cabitaankeena maanta waxaan ka sameynayaa saytuunkeeni uma eka laakiin carabti iyo dhadhanka waa isku mid cad waa dhexda ka cad keeni wuxuu binki uu dhexda ka ahaa wuuna ka waaweynaa intaan aan naqaanay marka carafti iyo dhadhankana waa isku mid run ahaantii marka waa shiiday marka intaan shiiday miiray ayaan baraf ku daray sambuuskeeni waa kaas aan ku soo baxay saliid ma leh waxyaalo badan oo kumaana darin spices badan marka maasha Allah aad u caafimaad u leeyahay cabideena wataas halkaas laga soo qaataa saan ku soo baxay kuwaafa ayaa la yiraahdaa ama waa saytuun maasha Allah haddii aad ka hesheen fiidiyowgan la share gareeya walaalaha kale waa ku mahadsantihiin daawashadiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu